socotaa iyo halkay wax marayaan bal soo dhowo marka hore muddona saxada siyaasadda waa ka maqnayd waa dhawaa walaal mahadsanid idaacadda adiga ku salaamaya walaal xasan waayahay dalka doorashooyin buu galay federaalka iyadoo xilli muddeedkii xasan sheekh uu gabagaba yahay bal marka hore xaaladda koonfurta soomaaliya iyo sidaad u aragtid waxaa sheegaysi weeye dalka doorashuu galay doorashadaas waxaan rajeynayaa inuu doorasho khayr qabta ilaahay ka dhigo oo doorasho xalaal xaqa ay noqoto rag badan baa tartamaya kulliba kii calaf ku yeesha baa ku guuleysanaya marka khayr iyo guul baan u rajeynayaa doorashadaas oo ta doorasho si fiican oo xalaal ah hadday tahay inay khayr ku dhammaata rajeynaya laakiin doorashada uu wado ninkaas xasan sheekh la leeyahay madaxweynaha soomaaliya sheegta waxaan umaleynaya in mid wax ku ilaabayin inay tahay umaleynaya xaqna maaha mid wadaa mid saxa maaha mid ku shubasay laakiin laga yeeli mayo hal maalin hadday ka dhiman tahay hal maalin lagu daramayo ummadda soomaaliyeedna waa u sheegayaa siyaasiyiinta tartamayana waa furayaa hal maalin inaan lagu darin lagana yeelin markii horeba awal baaba labadii jeer oo qalad lagu doortay oo baarlamaanka la cagsiyey oo qalad lagu doorto madaxweyne abid ugu liita weeye soomaaliya soo maro qaay waddan mucaaradku waa shireen waxay sheegeen in doorasho aysan dhici karin puntland iyo somaliland oo waddanka wadahadal ka maqan iyo jubbalandba arrintaasi shirka mucaaradka sidaad u aragtaa ama mucaaradka waa soo dhaweynayaa waa runtood weeye doorasho ma dhici karto sababtoo tahay dee gobollada meelo badan baa dagaalo ka socdaan meesha ninkaasi meesha hadda uu ka soo jeedo gobolladiisii argagixisaa meel walba qabsatay anaweyd waa ogeyd adayabaaliyo golole iyo balcad iyo afgooy labada jeedoo laga soo galaba argagixisaa qabsatay labada koontarool balcad iyo golole balcad iyo waxaan dhihi lahaa iyo afgooyaba ayadoo magaalada xamar ay u jiraan 90 kilomitir magaalooyinkaas dee maba dhici kartaba doorasho in dhacdo meeshaas 90 kilomitir argagixisa meel midda kale gobolladii ugu waaweynaayo dhan puntland jubbaland haddaan ma doorasho ka dhacayn doorashada xagee ku qabanaya waxaan u malaynayaa dee kaaraan iyo meeshii maxaa ahayd muuse suu deganaayo magaca meeshaas unbaa ku qabanaya waayahay waxaa la leeyahay mucaaradka qaarkood xasan sheekh bay la safan yihiin oo isaga ku darsaday xubnaha golaha mucaaradka arrintaasi maxaa ka leedahay sida roobloo kale oo ku jira haddan golaha mucaaradka mahadsanid aad baa umahadsan tahay walaal aad baa umahadsan tahay waxaan ka leeyahay haddii lug kula jiraan waa qalad waxaas waan falxumo inay xaqdarro kula socdaan xasan sheekh oo qalad sameeyey oo maaragtay doorashada xaaraana dastuurkii ummadda soomaaliyeed ee 2012 ilaalay taas hadday ay sameynayaan qalad weyn weeye waa inay ka noqdaan doorasho ummadda soomaaliyeed way rabi lahayd laakiin midda oo wadaa waa mid jeebkiisa weeye ninkaas madaxweynaha soomaaliya sheeganay waxaan kaloo kugu darayaa haddaa fursaddan qaaliga ay siisano aad baa u mahadsan tahay jenaraal maxamed sayid taasi u dirayaa yaani wadkeeriyooday inaan ilaa inaan raajicuun baana leeyahay carruurtii iyo qoyskii oo qaraabadii ummadda soomaaliyeed dhan iyo dhammaan ciidamada qalabka sida uu ka geeriyooday soomaaliya dhan taasi u diraya gaar ahaan waxaan taasi u dirayaa qoyska reer maxamed siyaad barre ana maxamed siyaad barre ilma maxamed siyaad reer barre oo dhan waxaan rajeynayaa in la maamuuso ilaa haddeer lama soo qaadin madaxweynaha saciid cabdullaahi dee nin aad iyo aad u wanaagsan ilaa hadda sooma qaadin nairobi inuu ku booqday baan maqlay aad buu ugu masay laakiin aas qaran in loo sameeyaa rajeynayaa ninkaas xilliga wadaniga ummadda soomaaliyeed buu ka geeriyooday waa in aas qaran loo soo astaan qaran weeye nin dalka usoo shaqo weeye madaxweynaha soomaaliya taasi uma u dirin madaxweyne farmaajo u diray iyo labada madaxweyne hore cabdullaahi farmaajo iyo cabdiqaasim salaad xasan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa nimankii dowladnimada dhidbada u taagay magaalada xamar dhisay dowladnimadana dhisay waayahay rag culus bay ahaayeen allahu naxariisto dhammaantood morgal iyo dafle waxaa kaloo raba inaan ku weydiiyo cornel dagaalkii calmiska gabagabo ku dhow yahay guulihii ugu dambeeyey ee ciidanka puntland ay qaadeen waxaa ka mid ahaa miraale inay la wareegeen bal adiga maadaama khibradaha dagaalka wax ka taqaano horeyna aada qeyb uga ahay saraakiishii dowladdii kacaanka bal fariinta ku aadan dagaalkaas iyo guulaha ay gaareen ciidanka dowladda puntland maxamed lankii aad iyo aad u mahadsan tahay horta waa u hambalyeynayaa guulaha ciidamada qalabka sida puntland ay gaareen aslaamaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa horey baan u sheegay wejiga saddexaad markuu bilowdo in lagu soo abjirayo
muddo 10 beri intii bay noqotay waa lagu saabjiray saraakiisha qorshaysay dagaalkii madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Deni oo taliyaha ciidamada qalabka sidaan oo mahadcelinaya reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhan guusha soo hoyatay Puntland soo hoyatay waa guur Soomaaliya oo dhan soo hoyatay waan la soo abjiray wajigii saddexaad waa dhamaaday wax yar baa ka dhiman inta ka dhiman oo hadda guulaha hadda maalmahan meeraala iyo meelaha ciidamada qalabka sida ay la wareegeen aad iyo aad baan uga hambalyeynaya guuleystaan leeyahay in la soo abjiray doona Argentina ka bacdina sida madaxweynuhu sheegay howlgalka xillaa ka bacdina onkod baa loo gudbi doonaa halka dhigaas aad iyo aad baan uga helay aad baan madaxweynaha ugu mahadcelinay wax halka dhig fiican xillaa sidiiba magacii loo bixiyay waa hirgalay ciidamada Puntland Argentina markay onkod soo gabagabeeyaan argagixisada koonfurta inay usoo jeestaan sababta waxa weeye inta dhulka Soomaaliyeed cad uu tuuro ka mid haysto guusha Puntland kaliya maahane waa in Soomaaliya oo dhan weeye marka koonfurta inay usoo jeestaan sababta dadkii nimankii dowladda federaalka sheeganay dowladda sheeganay way gabeen laakiin ciidamada qalabka sidoo dhan oo Soomaaliyeed baan u hambalyeynaya oo geesiyaasha ah ninka hadda hoggaanka u ah ayaa nin xun u ah madaxweynaha Soomaaliya oo hagraday ciidamadiina baabiyey laakiin ciidamada xoogga dalka oo dhan baa geesiyaal ah oo meesha loo diro guula ka keena waa ciidamada ogeyd ilaa iyo qarni dahre ilaa goday ku xoreeyay 77 muddo 2 isbuuc muddo ku sugan waaya ugu dambeyn korneel farxinta aad la wadaagayso shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ee dal iyo dibadba kala socda maxay tahay Soomaaliyeed guuliyo gobonimo u rajeynaya bogooda barcad ah isku mariyo dowladnimo fiican in la dhiso sanadkii 2016 gaarsiinaya ummadda reer Puntland waa salaamay sidaas ay tahay sidaasna waa ummadda reer Puntland baa uga tagay markale ummadda Soomaaliyeed guuliyo gobonimo u rajeynaya doorasho fiican inay dhacdo Argentina sanadkii 2016 taariikhkina waa batay in بريان دليرة تاريخ كل أنت إلهي هون حريستو دليرة شغال أمور الله سماه دولة بالله بفريا وسير شغال حي مدحوين الشيخ عبد الله دني إن شغال أمور الله سماه يدك وحيل التحرير يعني وشغال آن دلوقتي جدا مركا مدى السوالين خير بأورجينيا عيد صاصعته خير عيد خير قبت إلهي خليقو عيد الحال صاصعته aad u mahadsan tahay Cornel Farxaan Maxamuud Siyaad Raam Ole oo soo ku sugan dalka Mareykanka khadka taleefanka igu waramayay kana hadlay arrimo badan oo xaaladda dalka aad u mahadsan Cornel